مات فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا. حديث كي تضباطنات عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحده النبي الفطرة فطرة 5 دينتو وشن لغما ودا شنتان كليا دينتي oo fitradii iyo miladii ahee waxaa loola jeedaa 5 ayaa markaa ka mid sida mtaqaanaa qayb ka mid ay tilmaantay aw 5 min alfitrati waa tana ama 5 fitradii markaa ka mid tahay alkhitaanu waa gudniinka in laisgudo diintay markaa ka mid tahay waa midda koobaad walixdaad waa ixdaadka waa in timaha hoose ee caanada lagu magacaabo ee farjiga gaararkiisa ka dhalata in layska gooyo la guro ama layska xiiro ayadana fitradii markaa ka mid tahay wataqliimu ladfaari cijiyaha oo la guro cijiyaha oo markaa layska jaro wanatfu libiti kilkilaha timaha ka soo baxa oo la shafo ama la guro ayagana waqasu shaaribi io shaaribtoo la gooyo la gaabiyo oo la gooyo shawaaribta muttafaqun calayhi 5 waxyaabood milada iyo fidrada saliimtay ka mid tahay waa in laisgudaa khaasatan wiilasha istixdaadkana waa timaha hoosoo la guro nadaafadda ay aad ugu fiican tahay cuduro fara badan oo ka dhalan lahaa tiya markaa laga hortegaya iyo raa'ixa kariiha oo ay leedahay istimtaacu ku fiican baad maqlaysaa maanta qarbi iyo galbeed wax inooga yimid cijiyaha in layska guro kilkisha timaha ka soo baxa oo la gooyo shawaaribta oo la xiiro arkaanulislaam 5 arkaanta islaamku waa 5